بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد. waxaa halkaan kaga soo gudbin doonaa walaalahaygow qiso yar oo aad iyo aad u cajiib ah. qisadan waxaa wariyey sheekha caanka ah ee cabuud bin cawn alcusayri ee u dhashay dalka sacuudi carabiya. qisadan ayaa waxay ku bilaabatay sida tan: maalin maalmaha ka mid ayaa wareegta waxay kasoo baxday in la dhammaystiro dariiqa aadka u weyn ee xijaas dhex mara, waxaana qandaraaskii qaatay shirkad ka mid ah shirkadaha dhismaha ee waddanka sacuudi carabiya. shirkaddii ayaa bilowday inay dhisto dariiqii, waxay tuulo u gudbiso, magaalo u gudbiso. maalinka dambe waxay soo gaartay magaalo la yidhahdo shumra. waxay leedahay qabuuro aad iyo aad u qadiim ah. waxaa dariiqii inuu dhammaystirma joojiyey qabuurihii. shirkaddii waxay ruqsaama dacwo ay u qortay maxkamaddii magaalada shumra waxay fadwa ka dalabtay hay-atul kibaar alculamaa si loo suuliyo ama qabuurta meesha loo raro meel kale loogu raro. hay-atul kibaar alculamaa way kasoo jawaabtay, waxayna fadwootay in qabuurtaas la baxsho oo meel kale lagu aaso. ilaahay mahadii, waxaa la bilaabay qabuurtii in la fago. waa la fagay qabuurtii waa la fagay. qabrigii sidiisa waxaa loogu tagaa badanaa lafa dhintay ama baaba'ay iyo riix ur badan. waa la fagay qabuurtii. markii la fagay waxaa la bilaabay in meeshii laga raro meel kale loo raro. siday u wadeen ayay waxay soo dul istaageen qabri ka mid ah qabuurihii. way fageen, waxay uga tageen riix caraf badan ama ur caraf badan. way yaabeen, way fageen, waxay ka leexiyeen oo ahaay alwaaxdigii wixii bay ka leexiyeen. waxay u tageen qof sidiisii ama maalinkii la-aasoo kale ah. qabuurtaa waxaa ugu dambaysay qof lagu aaso 30 sano ka hor. sidiisaasoo ah bay u tageen. way yaabeen, way takbiirsadeen, way soo bixiyeen, wejigay ka feedeen. wuxuuba noqdayba qof la yaqaano hebel ah. aabiis ilaa hadda waa nool yahay. way aqoonsadeen qabiilkii meesha degaayay. waxay dhaheen waa ina hebel ahaay. way yaabeen, way takbiirsadeen, allahu akbar. jirkiisii waa sidiisii, wejigiisii waa sidiisii, karfantiisii waa sideedii, xitaa dhibicya meel yar oo iska bedesha laguma arag. way yaabeen, way baxeen. waxay dhaheen qofkaan aad ku nasiibka badan yaha waay. way la yaabeen, way baxeen. waxay u geeyeen aabiis waa nool yahay. aabiis weli noloshii baa ku dambayso. oday waa yeela. albaabkii u garaaceen. waxay dhaheen aabe, waxaa wadnaa wiilkaagii. wuu yaabay, wuu qabtay, wejigii ka feeday. wuxuu arkay inuu yahay wiilkiisi. ilaahay buu mahad celiyey. wuxuu yidhi ilaahayow adaa mahad leh, ilaahayow adaa karaamo badan. 30 sano kadib haddaa wiilkayga ii soo celisay, asagiyoo sidiisii ah, asagiyoo jismigiisi isbedelin, wejigiisi isbedelin, karfantiisi isbedelin. ilaa wadaa 30 sano ka hor iga qaadada maanta adaa ii soo celisay. way yaabeen, way ka qaadeen wiilkii. aabihii way ka qaadeen. qabrigii loogu talagalay in lagu duubo mar labaad ayay u geeyeen. kuwoodii saalixiinta ah iyo kuwoodii ilaahay yaqaanay baa soo noqday. qofka muslimkaa markuu wax arko waa inuu ku cibro qaataa. waxay dhaheen saa macquul maaha, waa ina odaygu noqona. waa inaan weydiinaa wiilkiisa wuxuu qaban jiray. waxay weydiiyeen calaa eish maata ibnak, wiilkaaga muxuu ku dhintay 30 sano inuu isbedelin, maxaa sababa? su-aalay weydiiyeen. wuu jawaabay aabe, dhalinyaro ii dhagaysta. aabihii wuu jawaabay. wuxuu yidhi wiilkayga intaan garanayo yidhi takbiiratul ixraam mayse ka tegin, iyo safka koowaad muuse ka daahi jirin. war walba wuxuu ku dadaali jiray safka koowaad ee takbiiratul ixraam inuu la qabsado wiilkayga, khaasatan salaada subax. wuxuu yidhi wuxuu bixi jiro oo yidhi intaan salaada la gaarin ayuu weysaysan jiray, ayuuna bixi jiro oo yidhi si uu u tukado 2 ragcay ka horeyso salaada subax. wiilkayga wax kale kuma ogiyo yidhi ilaa qadiyatu salaad buu ku dhintoo yidhi asoo salaada xifdinayo. taasna waa sababta. wuxuu yidhi aabihii waa sababta 30 sano uu isku bedelay jirkiisa. waa sababta oo 30 sano karfantiisii maalinkii la dugay oo kale ay tahay. caraftii markii meydka la carfinayay, maalinkii la carfinayay sideeda tahay, kasii carfaya weliba. marka waxaan nafteeda iyo naftiina ku waaninayaa inaan salaada xifdino, inaan salaada aad u xifdino. maalinka yawmul qiyaama waxa ugu horeeya la isweydiin doono waa salaada walaalayaal. marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. isbedelin ilaa wadaa 30 sano ka hor iga qaadada maanta adaa ii soo celisay.
ويابين ويكقادين ويلكي أبي ويكقادين قبري لو تلقى لو دوغ مر لباد أي جيين كود صالحين تاعي كودي إلهي يقاني باس soo noqday qofka muslimka markuu wax arko waa inuu ku cibro qaataa waxay dhahaan saamax qul ma wayna odaygu noqon wayna weydiina wiilkiisa wuxuu qaban jiray waxay weydiiyeen ala eesh ma taybnak wiilkaaga muxuu ku dhintay soddon sano inuu isbedelay maxaa sababa su'aalay weydiiyeen wuu jawaabay aabay dhalinyaro ii dhagaysta aabihii wuu jawaabay wuxuu yidhi wiilkayga intaan garanayo takbiiratul ixraam maysa ka tegin iyo safka koowaad muuse ka daahi jirin warwalba wuxuu ku dadaali jiray safka koowaad takbiiratul ixraam inuu la qabsado wiilkayga بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كان كيسو قد بدنا ولا لهيجو قصير وعادي عجيبة قصدا وحوري شيخ عنكا يعبود بن عون العسيري ولا شيخ الكسعودي العربية قصدا أي وحي كبلا بتيسيدا كان مالين مال ما كمل أي وريكتو وحي كسر بحضي إلا لما يستر طريقة آتك وين حجاز الأحمر waxaana qandaraaskii qaatay shirkad ka mid ah shirkadaha dhismaha ee waddanka Sacuudi Carabiya shirkadii ayaa bilowday inay dhisto dariiqii waxay tuulo u gudbiso magaalo u gudbiso ay maalinka dambe waxay soo gaartay magaalo la yiraahdo Shumra waxay leedahay qabuuro aad u qadiim ah waxa dariiqii inuu dhamaystirmo ay joojiyay qabuurihii shirkadii waxay ruqsama dacwo ay u qortay maxkamadii magaalada Shumra محكمة مقالة الشمرة وحي فضوى كدلبتي هيئة الكبار العلماء سير لو زوليو أما قبورت ماشي لو رورو ميلك لو قررو هيئة الكبار العلماء ويكسو جوابتي وحينا فضوتي إن قبورت تلبحشو أو ميلك لو واسو إلهي مهدي إلهي وحالا بلا قبورتي إن لفقو ولا فقي قبورتي ولا فقي قبري سيدي سيدي وحالا لو تقابلنا لفد انتي أما باباي يوريك بربضن ولا فقي قبورتي markii la fagay waxa la bilaabay in la meeshii laga raro meelka loo raro jirkiisi waa sidiisi wajigiisi waa sidiisi karfatiisi waa sideedii xitaa dhibicya meel yar oo iska bedeshay laguma arag way yaabeen way baxeen waxay dhaheen qofkan aad ku nasiibka badan yahay way la yaabeen way baxeen waxay u geeyeen abiis waa nool yahay abiis weli noloshii baa ku dambayso oday waa yeela albaabkii u garaaceen waxay dhaheen aabe waxaa wadnaa wiilkaagii wuu yaabay wuu qabtay wejigii ka feeday wuxuu arkay inuu yahay wiilkiisi ilaahay buu mahad celiyey wuxuu yidhi ilaahayow adaa mahad leh ilaahayow adaa karaamo badan 30 sano kadib haddaa wiilkaygii ii soo celisay asagoo sidiisii ah asagoo jismigiisi isbedelin wejigiisi isbedelin garfantiisi siday u wadeen ayay waxay soo dul istaageen qabri ka mid ah qabuurihii way fageen waxay ugu tageen uruf ريح عرف بدن أمور عرف بدن ويابين ويفقين وحي كل حيان هو هاي الواحد يجي وحي كل حيان وحي يتقين قف سيديسي أو مالك العصو كلا قبورتا وحي أودن بيزو قف لقواس صدر سركار سيديس أسوها بي يتقين ويابين ويتكبير سدين ويصوب بحيان ويجي كفيدين وحوبا نقضيبا قف ليقانو هبل أبيس إلا هذا وانولي هاي أبيس إلا هذا وانولي هاي way aqoonsadeen qabiilkii meesha degay waxay dhaheen waa ina hebel ahay way yaabeen way takbiirsadeen Allahu akbar